daawadayaal soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore ninkan la magac baxay Xalliye oo inta badan dumarka baraha bulshada ku weerara ayaa la ogaaday arrin la yaab leh iyo sababta ka dambaysa weerarka joogtada ah oo dumarka ku hayo haddaba intaanu u gudagelin ka sheekeynta iyo xaqiiqada dhabta ah waxaan iiga codsanaynaa saaxiibayaal in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo la wadaagaya saaxiibadiina kale si muuqaalka saaxiibo badan uu u gaaro Xalliye ninkan lagu magacaabo ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo muuqanaya kaamirooyinka baraha bulshada inta ugu badan dumarka ayuu si weyn ugu dhaganaa isagoo ragga sheegaya inuu kaga digayo xariiftanka iyo sidoo kale shaaftada aan hakadka lahayn ee dumarku ay isticmaalaan taa uu ula jeedo dhaqaalaha shopping race-ka ragga ee siiyaan dumarka hadda mid ay u gartaan amba jecel amba xaasle amba saaxiibtinimo tay doonto ha ahaatee Xalliye markuu bilaabatan iyo barnaamijkan oo ragga kaga digay in naagaha aan dhaqaalo waaliyan lagu bixin ayaa arrintaas waxa dhibaatooyin xoogan kala kulmay dumarka kuwaas oo sheegay in ay hoos u dhacay dareemayaan kadib markii la soo abtiiniyay wararka sheegaya in dhibaato ay ku yihiin ragga haddaba Xalliye arrintan maxaa dusha u suray maxaase ku dhacay ma asiga hore loo soo dhibaateeyay sheekooyin dhab ah ayaa laga soo saaray saacadihii la soo dhaafay asiga qudhiisa 24 saac ee la soo dhaafay iyo sidoo kale wixii ka sii horeeyaba Xalliye ayaa ku dhaganay dumarka baraha bulshada ayuu si weyn u qabsaday isagoo hadalhayn badan ka sameeyay haasaawanimada dhaqaalaha shopping race-ka dumarka lagu bixiyo amba saaxiibtinimaha lagu siiyo amba sidoo kale jecel ha lagu siiyo isla socod iska caadiya iyo sidoo kale deen iyo deeq waxay ku keenaanba garka ayuu ku dhaganayay gabdhaha Soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyana baraha bulshada ayuu arrimo la xiriira haasaawahan ku faaqiday inkasta oo toosh weyn uu ku daaray dumarku haddana hoos u dhac weyn ayay dareemeen gabdhaha Soomaaliyeed oo waxaan arkaynay baraha bulshada falcelino amba reaction laga bixinayo muuqaaladiisa iyagoo gabdhaha sheegayay inay hoos u dhacay dareemayaan kadib warkan Xalliye oo soo bandhigay sidoo kale tooshka sababaha uu ugu daba qaatay haddaba laba su'aal oo ugu waaweyn oo Xalliye ku dhacday ayaan idiin soo bandhigaynaa oo aan soo ogaanay qaraaxada maanta ayaa ogaatay Xalliye hadda koor in laba naag ee ka qaateen lacag dabeetana ay kaga baxeen heshiis asaga ay la galeen ka uu ku aadanaa xiriir wixii ka dambeeyay bishii Abriil sanadii 2017 ilaa iyo hadda Xalliye ayaa qorsheynaya si uu kaga hadli lahay xaaladda dumarka haddaba dumarka Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa in Xalliye skiisa doorro celiyo si uu u joojiyo sheekooyinkan uu wado waa sida xogta hoose ee heshay barnaamijka qaraaxada maanta waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato waxaa si naxariis la kaaga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdo siina share gareyso adigoo la wadaagaya saaxiibadaada kale waan idin salaamaa waxa ku arkaya qof Soomaaliya moogtahay adoo ku hadlaya luqad kale marka ma fahmayo luqadaad ku hadlaysid mana yaqaano waxa la iska soo jaraa walaalo luqadii hodanka ahayd ee Soomaaliga miyaad ka faanaysaa maxaad ugu hadli weyday luqadeennii Soomaaliga ahayd brada faanitaan waxa la dhahaa ma jirto ee aqbal inaadan luqadan aqoonin insecurity-ga iyo ammaan darrada inaadan luqadan aqoonin adiga ku haysata aniga ha ila soo aadin okay ammaan darrada hoose adiga ku haysata waa adiga dhibkaaga waxa la barto aqoontiina kor u qaada awow intii aad meelaha maxaa la dhigi jiray indha adag la taagnaan lahaydeen ka soo qayb galto barkayga dhacay 14 February linkiga profile-kana ku dhufo si aad is diiwaan geliso waan idin salaamaa in runta lagu noolaado faa'iido badan bay leedahay laakiin dadkeena 90% khiyaali bay ku nool yihiin waxaad arkaysaa nin naagtiisa ugu sheekeynaya ragay dhaafshay i hormariyay kor ii qaaday la'aanta nolol ma jirto subaxiina gaajuu shaqada ku aadaa habeenkiina waxa laga yaabaa in cashada ciyaalku ay cunayeen qayb laga siiyo sariirta uu soo laabanayana ay tahay sariir ciyaalku ku kaadiyeen oo wasakhaysan brada runta isu sheegno cid ku horumarin karta ma jirto aan nafsadaada ahayn jooji daanyarnimada ka soo qayb galta barkayga dhacaya 14 February linkiga profile-ka ku dhufo waan idin salaamaa rag badan oo laba xaniyoodlayaal waxay aadaan jiimka laakiin shaqo ma aadaan ay doono wax khaldan dhalinyaro badan oo aan la sheekaystay waxay ku leeyeen baraada ma shaqeeyo hay maxaad qabataa laakiin jiim baan aadaa
ma xumo laakiin ma xariiftantid lacagaad adiga leedahay kuma soo gasho lacagaad adiga madax banaanta kuma soo gasho ninka ragga marka koobaad waa inay dhaqaale ay jiraan soo galaya oo uu ka soo shaqaysanayo uu soo xariiftamayo oo lacag samaynayo jimka waad aadi karaysaa kama soo horjeedo jim waa meel maxaa la dhihi jiray caafimaad loo raadsado jirkaaga inuu dhismo loo raadsado okay laakiin shaqadaa ka horeysa wax sidee u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa shaqo markaad haysato lacagaad samaynaysid kadib baad jim aadi karaysaa kasoo qayb galta tababarkayga 14 February dhacaya linkiga profile-ka ku dhufo si aad si diiwaan gelisid waan idin salaameeyo waxyaabaha daanyarada laga gado laakiin aniga aan laga gadi karin waxa kamid ah mataqaanaa ya rag kale laba xaniyoodlayaasha gabdhaha Soomaaliyeed sidaa lama hadlo gabdhaha Soomaaliyeed sidaa lama dhaho aniga Oromo ahano aniga Brazil ka soo qaxano ragga Soomaalida Mexico ka soo guureen kadib ay Soomaaliya degeeno mahano gabdhaha Soomaaliyeed isdiiwaan gali ka soo qayb galta tababarkayga soo socda 14 February waan idin salaameeyo waxa ku arkaya qof Soomaaliya moogtahay adoo ku hadlaya luqad kale marka ma fahmayo luqadaad ku hadlaysid mana yaqaano waxa la iska soo jaraa walaalo luqadii hodanka ahayd ee Soomaaliga miyaad ka faanaysaa maxaad ugu hadli weyday luqadeeni Soomaaliga ahayd brada faanitaan waxa la dhahaa ma jirto ee aqbal inaadan luqadan aqoonin insecurity-ga iyo amaan darrada inaadan luqadan aqoonin adiga ku haysata aniga ha ila soo aadin okay amaan darrada hoose adiga ku haysata waa adiga dhibkaaga waxa la barto aqoontiina kor u qaada awow intii aad meelaha maxaa la dhihi jiray indha adag la taagnaan lahaydeen ka soo qayb galta tababarkayga dhacaya 14 February linkiga profile-kana ku dhufo si aad is diiwaan geliso waan idin salaameeyo rag badan oo laba xaniyoodlayaal waxay aadaan jimka laakiin shaqo ma aadaan I don't know wax khaldan dhalinyaro badan oo aan la sheekaystay waxay ku leeyeen baraada ma shaqeeyo hay maxaad qabataa laakiin jim banaada ma xumo laakiin ma xariiftantid lacagaad adiga leedahay kuma soo gasho lacagaad adiga madax banaanta kuma soo gasho ninka ragga marka koobaad waa inay dhaqaale ay jiraan soo galaya oo uu ka soo shaqaysanayo uu soo xariiftamayo oo lacag samaynayo jimka waad aadi karaysaa kama soo horjeedo jim waa meel maxaa la dhihi jiray caafimaad loo raadsado jirkaaga inuu dhismo loo raadsado okay laakiin shaqadaa ka horeysa wax sidee u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa shaqo markaad haysato lacagaad samaynaysid kadib baad jim aadi karaysaa kasoo qayb galta tababarkayga 14 February dhacaya linkiga profile-ka ku dhufo si aad si diiwaan gelisid waan idin salaameeyo waxyaabaha daanyarada laga gado laakiin aniga aan laga gadi karin waxa kamid ah mataqaanaa ya rag kale laba xaniyoodlayaasha gabdhaha Soomaaliyeed sidaa lama hadlo gabdhaha Soomaaliyeed sidaa lama dhaho aniga Oromo ahano aniga Brazil ka soo qaxano ragga Soomaalida Mexico ka soo guureen kadib ay Soomaaliya degeeno mahano gabdhaha Soomaaliyeed isdiiwaan gali ka soo qayb galta tababarkayga soo socda 14 February